Sheekh Xasan Dahaye Axmed oo kamid ah culimada Soomaalida oo maanta qayb ka mid ah warfideenada kula hadlay magaalada Boorame xarunta gobolka Awdal ayaa waxa uu sheegay in waqti xaadirkan uu si weyn u soo shacbaxay xiriir qarsoodi oo ka dhaxeeya maamul goboleedka Soomaaliyeed ee Jubbaland dawladda Kenya iyo waliba soo kale maamulka Tigreega ee wadankaasi Itoobiya waxaana uu sheekhu sheegay in xiriirkaasi ay isku baahaysteen isla markaasna waxa mid in muddo aba qarsoon sheekha arrimahaasi ka hadlaya ayaa waxa uu yiri maanta dhowr qodob baan idin xasuusinayaa Soomaaliyeed maadaama wadankeeni ma iyo dawladnimada maanta khatar ku jirto oo la rabo in lagu galgasho qodobka ugu horeeyay soo saaraya maanta waxa weeye maxaa ka dhaxeeyay Jubbaland iyo Tigreega TPLF-ka iyo Kenya saddexda maxaa ka dhaxeeyay waxa soo baxay in la raahdo ambassador Asmaamo oo general ah oo generaaladii Tigreega ah ragii xamar waliba baabiyay ee Soomaaliya laayay ayuu kamid yahay ninkaas aad baa u daawateen YouTube ku jira warkiisana waa dhageysateen xamarna aad baa looga soo daayay baraarujin waxa weyn u jeeday Axmed Madoobe inuu nin meel soo ka fadhiya ahayn ee u gaashaanbuur la yiraahdo saddex geeska Tigreega iyo Jubbaland iyo Kenya inuu ku jiray oo maantana maarta ninkaas uu ooyo oo leeyahay gaashaanbuurtii maadaama annagii Tigreeg ahaan lana baabiyay haddana waxa nagu darayaa Jubbaland iyo Kenya ayaa lagu duulayaa buu leeyahay oo wuxuu soo sheegay yaana maartaanay gaashaanbuur kale oo saddex gees ah oo uu soo ku sheegay gaashaanbuurta sharka oo uu leeyahay waa Farmaajo iyo Abi Axmed iyo Afarwarge saddexdaas maanta yaana igad ka maarmay ayay saddexdaas gaashaanbuur samaysteen oo ku duulayaan buu Jubbaland iyo maartaanay Kenya taa ku dheeraan maayo ninka maartay odagii wuxuu noo cadeeyay wax naga daahnaa aniga runtii ka daahnaa aniga laftayda iyo heerka inuu Axmed gaaray ma moodeynin waa arrin khatar ah taas waliba inagu waxaan u haysanaa gobol kamid ah gobolada Soomaaliyeed oo doorasho ka dhacdaad leedihiin taa idinku isku noqdo Soomaaliyeed meel kasta oo joogtaan gudiga dibadda geesta kale Sheekh Xasan oo hadalkiisa sii wata ayaa waxa uu shaaca ka qaaday balcidda ka dambeysay aasaaskii fikirka federalismka ee dawladda Soomaaliya qodobka labaad ee aan maartay soo qaadaya waxa weeye ninka Asmaamo oo cadeeyay janarkaas oo cadeeyay waa tii aan in badan ka hadlay ee ahayd maartay waxa loo yaqaan federaalka wuxuu federaalkii aan u sameeynay Soomaaliya oo uga jeednay buu dawladda yar oo daciif ah oo anagu maamullo aan ugu talagalay ayaa hadda maartay Farmaajo iyo kooxdiisu inay baabiyaan aan ka baqayaa buu oo maartay ka deerinaya waa taana wuxuu idin cadeeyay inaan ahayn maartaanay waxaan federaalka la raahday wax Soomaali u dana inaan ahayn oo Soomaali dooratay inaan ahayn laakiin Tigreegu inoo sameeyay 100 jeer horna waan ka hadlay Soomaali hadda tiina Tigreedna ma anfacayo dawlad maartaanay Soomaaliland la raahdo qabiil ah dawlad Puntland la raahdo qabiil ah Hirshabelle maanta waxa balweyne ka socda wada ogtiin maartay reer loo kala baxay maartaanay Jubbaland waa taa way ku deysay maartay iyo koonfur galbeed maxaa dawladahani federaalka tigreysani muxuu yahay waa in dhaqso looga noqdaa oo maartay federaalka laga noqdaa oo la baabiyaa oo dawladda Soomaaliyeed midnimada loo noqdaa federaalkaasina alxamdulillah ilaahay baan ku mahadinayaa inuu janankii sameeyay oo Asmaamo iyo Gabre ay maartay ka mid yihiin ana maartay inay idin cadeeyaan maanta qodobka kale ee soo qaadaya waxa weeye muxuu ahaa ninka u jooga kooxdani beesha gumaysiga aan u bixiyay xamar fadhida xalna fadhida ninka European Common Market European Union ninka u jooga midowga Europe ninka u joogay wuxuu yiri khudbadiisa maalintii dhaweed 2 cisho ka hor wuxuu yiri in nimankan mucaaradka xamar joogay wax doorasho ka weyn bay doonayaan buu yiri aad ugu fiirsada kelmadda ninkaas uu yiri waa xigmad weyn oo maartay inaga soo daadaadanayso inaga soo duulaysa weeyaan dadka inaga lafteena ina gumaysanaya wuxuu yiri nimanka maartay mucaaradku waxay doonayaan wax ka weyn doorasho oo ah inay Farmaajo khaarijiyaan Farmaajo horta waa nin shakhsi ah waxa uu mathala dawlad buu mathala dawladnimada 4 sanadood buu si fiican u hogaaminayay cala aqal qaladaad kasta oo kale hay yimaadaan laakiin dawlad baan maanta u agnahay khaasan xagga ciidamada iyo maartay awoodda iyo muuqaalka iyo ictiraafka adduunyada marka ninkaas wuxuu cadeeyay inay u urureen nimanka dhowr iyo 10kii madaxweynenimo inayna doonayn ay doonayaan kaliya horta in la isku tago Farmaajo wadanka laga khaarijiyo sababtoo Imaaraadka saa doonaya Kenyaanka doonaya cadawga oo dhan ee Soomaaliya ayaa saa doonaya waxa maartay aadan u la yaabanahay waxay yiraahdeen
xoolihii hantida ummadda ayuu farmaajo iyo dowladdiisu ay boobayaan bay yidhahdeen horta ninkii tuug ahaan jiray tuug buu ku moodaa mar walba cid kastana tuugunbuu haystaa waxa weeyaan farmaajo haddii uu yidhi maarataanay wasiirkiisa batroolku iyo shidaalku hadduu yidhi turkigaan ceel shidaal sideenaan noo qodo turkiga waa walaalkeen waa cidda maanta ilaahay intii ka sokaysa inoogu dhow islaamnimo iyo dadnimo bay inoogu dhow sideeba loo yidhaahdaa yaani shirkad maarata turki ah oo maarata ceel wax ceel inay qodalla maarata laga rajaynayo hanti ummadeed ayaa la boobay sida loo yidhaahdaa taasina waa qalad weyn weeyaan oo in laga xishoodo ah nimankana waxaan leeyahay wuxuun isku fala aniga dhammaantood nimankaasi waa wadaadda aan wada saaxiibba ahayn aqlabiyadoodu gebigoodba aad baan isku garanaynaa ka xishoodaan leeyahay waxyaabaha foorashta xun leh ee aflagada ah iska daayaan leeyahay gabagabadii sheekh ayaa waxaa ku hadlay aragtidiisa ku aadan hadalkii dhowaan ka soo yeedhay madaxweynaha waddankaasi maraykanka Donald Trump ee ahaa in ciidamada maraykanka guud ahaanba laga saaro dalka Soomaaliya sheekha ayaana waxa uu yidhi maraykanka waan baxaynaa oo ciidankeen waan la baxaynaa dad baa aad ugu ooyay oo maarta laga yaabaa dad badan oo xamar jooga iyo koonfurtu inay u ooyaan dad badan oo kalena inay ku wiirsanayaan leeyahay waan ku faanayaan in maraykanka ka baxayo Soomaaliya anugu waxaan leeyahay anoo xagga islaamnimada iyo maartaanay dhibta maarta maraykanku iyo gaalada inagu hayaan oo eegaya inaga maanta waa inoo guul inuu inooga baxo waddankeena oo balidoog inoo xoroobo oo maartaanay Jubbaland meelaha ka fadhiya ka xoroobo oo meelaha galmudug ka fadhiya ka xoroobo waa guul inoo soo heetabaan lahay waxaan aad ugu faraxsanahay inuu Turkiga diyaar u yahay inuu balidoog la wareego iyo saldhigyadiiba waa muslim oo maanta waa kii siin iyo duufka iyo qurunka ka biyay caruurteena isagoo oo maartay ra'iisul wasaare ah intuu qaaday gacantiisa ka biyay isagii xaaskiisuba ee maartay inagu quudinay ilaa yoomana hadana siin noo taageeraya kaas ayaan doonaynaa inuu la wareego maartay saldhigii Mareykanka ka guuray ilaahay baan ku mahadinaynaa Axmed Daacad magaalada Boorama ee xarunta gobolka Awdal.